أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسن ولي الشيخ حسين عثمان علموي waxaan wax ku darayaa qayb kooban ee ku saabsan carruurta wax u sheeg. maanta waa maalin talaado ah, bisha rabiicul awal ay tahay 15 1441 hijrada, kuna dhiganta 12 November 2019 miilaadiga ah. waxaan joogaa kacbada wejigeeda. kacbadu waxay leedahay 6 dhinac ama 6 weji. kow, wejiga hadda aad u jeedid waxaa la yiraahdaa wajhul kacba, wejiga kacbada. maxaa jira waxaa ku yaala albaabka kacbada ku yaala. marka albaabka ka soo baxdo midigtaada waxaa kaa qabanaya yaman, marka yamiin waaye, taasi ka timid yaman. bidixdana waxaa kaa qabanaysa shaam, suuriya iyo ciraaq iyo halkaasaa kaa qabanaysa. saasaa shaam loogu bixiyo. dhinaca ka dambeeya ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa dahrul kacba, kacbada dhabarkeeda. dhinaca bidixdayda ah waxaa la yiraahdaa dhinaca yaman, alwajhu alyamani. waxaana ku yaala dhagaxa madow ruknul aswad iyo arruknu alyamani oo qofkii taabta dembiga looga dhaafo. midigteeda waxaa ah wejiga shaam oo xiga xagga ciraaq iyo suuriya iyo shaam guud ahaan. wejiga shanaad waa dhalada kacbada. wejiga lixaadna waa dhulka kacbada. dhuunta ka soo qaada biyaha dhalada kacbada waxaa la yidhahdaa almiizaabu. almiizaabu hoostiisana dembigaa lagu dhaafaa haddii la baryo ilaahay. biyaha waxay ku shubtaa xijru ismaaciil. xijru ismaaciil, xijr wuxuu ka yimid xujra, qol waaye. nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markuu yimid cariish buu wuxuu uga dhisay wiilkiisa ismaaciil oo 2 bilood jira iyo hooyadiis haajar. halkaasay ku noolaayeen. kabacdina markay dhinteen mid walba halkaasaa lagu duugay. oo nebi ismaaciil iyo hooyadiis haajar waxay ku duugan yihiin xijru ismaaciil. 3 mitir oo ka mid ah xijru ismaaciil waxaa weeye waxay ka mid tahay kacbada gudaheeda. markaad halkaas timaaddo yayn ku seegin, ku tuko. waxaad la mid tahay qof albaabka kacbada laga furay oo inta gala gudaheeda ku tukaday. saasaa nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. halkan waxaa kacbada horteeda yaalla maqaamu ibraahim. wuxuu ahaa dhagax uu ku istaagay nebi ibraahim markuu kacbada dhisahayey. markaasuu ilaahay u jilciyey oo cagihiisu ay galeen. oo markuu kacbada kor ay usii dhisaba ay kor uu dhagaxaas ula kacahaya. hadduu midig uu raaco midiguu ula kacahaya, hadduu bidixu raacana bidixuu ula racahaya, hadduu hoos u soo dego hoosu u soo degahaya. marka haddaan intaas uga baxno, kacbada hadda aan horteeda taaganahay, cunuga markuu dhasho magac fiican u bixiya. hayr magacu wuxuu ka qaadanayaa sad buu ku leeyahay, nasiib buu ku leeyahay nolosha cunugaas. wiil iyo gabar wuxuu rabaa ha ahaadee waxaa u bixisaan magac fiican. wiil hadduu yahayna waxaa u bixisaan maxamed, maxamuud, axmed iyo wax xamdi ku jiro. waxaa kaloo u bixisaan wax addoonsi ku jiro sida cabdullaahi, cabdiraxmaan, cabdulqaadir iyo wixii la mid ah. maalinta qiyaamana magacaasaa loogu yeerahayaa. magac uusan ka xishoon marka loogu yeerahayo ama uusan ka baqin. gabdhahana waxaad u bixisaan faatima, zaynab, ruqaya, umu kulsuum, khadiija, caaisha, xafsa iyo wixii la mid ah oo haweenka nebiga
قبلها النبي قرابتي ساعة صلى الله عليه وسلم ما أنت تضبط عنقه تمها وكل شيء وعلاش الحديد وصبح كحيرة ما أنت تضبط هو القلق والقلق هو ويلكن هو لبون قبضنا هو ون كبعدنا ويلي قبربه والجذهية عنق مركو دشو تجابية مقل كيسة دكتا وشرقا ودوية أما انتو كو عدنتان إنو مقلها هي إنك لا أركا بيدح لنا إقامة وبسمية وهو يدو إنو ينوجسو ويعانا بورسين عايرا هو يدو نوجين تيدا هذا وحو كنا قلنا عنق بارئة وفي عن وحنا عاناها وهي كجرة وحضر ردك علمها هي عرورتي يعني للدين مركا يريريهين ما بيقانان waxa loo dilahay oo loo ciqaabahay marka waa ciqaab xaq darra wala dulminahay isagoon wuxuu daleemayaa inuu dulmisan yahay haddii carruurta wiilasha la dilo wuxuu wiilku noqonayaa fulay uu noqonayaa sariirtana waa ku kaashahaya soo hurdo isu kaashahaya hadhowna wuxuu noqonayaa sidoo gacanta isaga celinaya waxa lagu dhufanayaa wiil fulay ayuu noqonayaa gabadha in la taabtaba ma aha in la dilo ma aha haddii gabadha la dilo waxay noqonaysaa hooyo xun xaas xun haddii la guursadaan ninka khilaafaad badan ayaa dhex marahaya qof fiican ma noqonayso sariirtana waa ku kaashaysaa markay hurdo habeenkii salaada bara cunuga markuu toddoba yahay markuu toban jirana hadduu tukan waayo ku garaaciddu waxaa weeye xanjaf yar soo qaada ama cadayga gacnaha uga dhufo ama cagaha uga dhufo cagta cad uga dhufo عرورت عقل بيليه حتى مركي يريهن عقل بيليهن لكن عقلوده ما بسلا كاغو كلام ما أها مركي وحا الشيء هيو وحا الغفل هيو وقرنا هيو وحو مميز نقولنا هيو وحا حن وحا في عن كلبرنا هيو مركو ويلكو تدبق هارو gabadhuna markay ama 8 ama 9 gaarto wiilku iyo gabadhuba waataan soo sheegay waxa la baro waxay u baahan yihiin laba waxyaalood oo adiga gacantaada ku jira waxay u baahan yihiin adiga weheshaada cunugu markuu xoogaa roonaado wehel buu u baahan yahay in wax la baro u baahan yahay in wax loo sheego u baahan yahay haddaad adigu u wehelin weydid oo wax fiican u sheegi weydid oo aad adigu wax afbari weydid oo aad sida dadka muxuu ahaa aan wax garanin ay yeelaan oo aad carruurta inta fogeysid Bakistaan geysidoo ayaga iyo hooyadood ama Kenya ama waddan kale aad geysid waxay ku afbaranayaan dadka aad u geysay caqiidadoodayna qaadanayaan adigana markay soo noqdaan waa suluugaysa oo waxaad ka rabtay ma aha haddii galbeedka la joogo haddaadan adigu wehelin oo aan waqtigaada siinin gaala wehelinaysa waxaa wehelinaysa telefisyoonka ama gaalada iskoolka joogta ama asxaabtooda ayaa wehelinaysa markaas waxay barayaan caqiidadooda iyo gaalnimadooday barayaan marka weheshaada waa u baahan yihiin maalkaagana waa u baahan yihiin oo waxaad ugu gadaa kutubo ay wax ku bartaan ay akhristaan ay ku maaweyshaan waxaad geysaa kacbada gee soo xajisii soo cumraysii waddankooda gee ha soo arkaan dalkooda
waxaan mar kale wax ku oranayaa carruurta qur-aanka bara waa soo sheegay carruurta nebiga jacaylkiisa bara waa soo sheegay inay nebiga ku sallayaan sala allahu calayhi wasalam waa soo sheegay dugsiyada wahaabiyada ha geenina horaan uga soo hadlay waxaan ku darahayaa ninkii indhoolaha ahaa indhaha la'aa aan waxba arkaynoo ku dhashay oo la yidhaahdo ibnu baas oo muftiga waddankan sacuudiga ahaa wuxuu tegey oo la shiray culummada jaamacadda azhar ayuu la shiray markaasaa azharkii oo dhan la shiray u yimaadeen markaasuu wuxuu yidhi waxaan idinku imid inaan idin idhaahdo qur-aanka yaan la tafsiirin tafsiir ta'wiil yaan lagu samaynin waa la aamusay wiil yaroo markaas azharka ka qalin jabiyaa u jawaabayoo wuxuu yidhi seebaad adigu u fasiraysa man kaana fii haadihi acmaa fa huwa fi alaakhirati acmaa see u fasiraysa qofka adduunkan ku indhala'aa aakhirana waa ku indhala'ya markaasuu inta istaagay albaabka ka baxay shirkii ka baxay qur-aanka yaan la fasirin qur-aanka micnihiis waxaa weeye qur-aanka waxaa ku jira kow dalool qur-aanku waa waxdaaniyada ilaahay yaan la sheegin weeye macnaheedu waxdaaniyada ilaahay maxamedan ilaahina waxdaaniyadana waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma kala haraan kow yaan la sheegin weeye waxdaaniyada labo qur-aanka waxaa ku jira shareecada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo dhanaa ku jirta shareecadan yaan la sheegin weeye saddex qur-aanka waxaa ku jirta qisas alambiyaa ummadihii naga horreeyey iyo nebiyadoodii qisooyinkoodiiaa ku jira yaan la sheegin weeye marka wuxuu rabaa ujeeddadiisu waxaa weeye diinta islaamka inuu tirtiro oo la tirtiro burburinta diinta islaamkuu raba wahaabiyadu saas weeye qorshahooda waxaa ku jirtay kacbada in la dumiyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in qabriga uu hadda ku jiro laga saaro albaqiic lagu duugo oo qorshahaas waa socdaa ilaa maantada in wixii masjid iyo qubbo qabri aalulbeyti saarnaa la dumiyo kulligoodna way yeeleen waxaa waagaan safiirka ka ahaa jarman ii soo martiyey laba nin oo culamo ah mid waxaa weeye sheekh xasan cabdullaahi allaha u naxariistay oo jaamicadda asar ka soo baxay ahaana markaas waa 1980 iyo xoogaagii wey 83 wuxuu ahaa wasiirka diinta iyo cadaaladda markaasaan waxaan weydiiyey wuxuu u dhashay habar yoonis isaaq habar yoonis oo uu ka sii ahaa isxaaq waxaan weydiiyey wahaabiyada iiga warran wuxuu yidhi wahaabiyadu markay soomaaliya timi wahaabiyadan kaaga warramahay madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu warqad iigu dhiibay boqorka sacuudiga waa soo baxay boqorkii baan hor fariistay warqaddii baan u dhiibay anna nuqul baan ka haystaa buu yidhi waxaana ku dhegnaa buu yidhi warqadda jalaalatulmelik boqorow soomaalidu waa 100% shacbi muslim wada ah haystana madhabka shaaficiyada diinta islaamkuna waxay soomaaliya soo gaartay 8 sano ka hor intayan madiine gaarin oo uusan nebigu u haajirin sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam waxaana haysannaa madhabka shaaficiyada weligeenna nama soo marin khilaaf madhabi ah ayaamahan dambe ayaa waxaa na soo galay dhallinyaro masjidyada dhexdooda muslimiinta khilaaf ka dhex abuuray oo quluubtii dadka kala jeediyey markaasaan baarnay dhallinyaradaasi waxaan baarnay dhallinyaradaasi arrinkooda
waxaana noo soo baxay in la yidhaahdo wahaabiyiin ayna adiga boqoroo kuu shaqeeyaan marka hadduu warkaasu sax yahay oo run yahay naga cesho shiikhu wuxuu ii sheegoo yidhi markuu dhammeeyey akhrintii warqadda xaggaygu u soo jeestay wuxuu yidhi warqadda madaxweyne maxamed siyaad barre waxaa ku dhigan run weeye anigayna ii shaqeeyaan waxayna hoos yimaadaan aala sheekh madaxweynahana salaan iga gaarsii qoraal baan ugu soo jawaabi doonaa waa intaas warkiisu marka haddii boqorkii sacuudiga uu leeyahay anigay ii shaqeeyaan ayna yihiin ciidan uu leeyahay boqorka sacuudiga adiga soomaaliyo maxaa kaaga jira maxaa xisbi siyaasadeed ama xisbi military oo dal shisheeyaa leeyahay maxaa adiga ku geliyey waxaa isaguna isla markaas marti ii ahaa sheekh cali suufi allaha u naxariistee caalinkii weynaa oo soomaali badan ay wax ka baratay wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa wafdiga amxaarada ee xajka soo aaday waxaana deganaa harar markaan xajkii gudannay ayaan waxaan goosannay inaan dhowr maalmo kacbada la derisno markaasaan kacbada agteeda salaadda ku tukadaa maalin markaan salaadda casir tukaday ayaa labada cududood laba nin i kala qabatay waxaa la ii horgeeyey xabisaa la igeeyey kadibna qaali baa la ii horgeeyey wuxuu yidhi danjirow waxaan jiraa 103 sano been kuu sheegi maayo qaali fiican buu ahaa wuxuu yidhi ma taqaanaa sababta lagu soo xiray waxaan idhi maya wuxuu yidhi waxaad ku saliyeysay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku yidhi buu yidhi qaaliyow in nebiga lagu saliyo waa waajib oo ilaahay wuxuuna yidhi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دين الإسلام قالوا قالوا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم آذانك كجرتا إقامتي كجرتا ما هو واجب وحو يربي الغالي وركاس كداي حدا حبس وحكومة مهيو ترحيل بنك وحكومة مهيو وحنكو يربي الغالي وهذا ترحيل يصير إثيوبيا هي وعلن محاجر حقنا ولا يوحرها يروح على إيدي إن أنقري يكون نقضه هوتيل كان دقنا وأنا غابتي دي العقد سوقاته حبسي وحال إيقاري حبسي وحتوس لإيجي مركب بدي عسي لا يا بربو الإثاري بربرال إيجي جي أساسا صوماليا كو إمد بوي مركب وحالو حري شي على السوفي وأنا أفكيس كم مغلق إنه نبي كس لنا هي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون واتاس كعبدي واتاس مركع عكورتا كفوجي بوسيدا وهابيدا وهابيدا وقوة دريقيدا النبي نوشة عليه السلام ودريقيدا تاجن دريقيدا يرير وكوين كله حنا هيا ودتك نارت وير هيو waxay isku bedelaan wahaabiyadu si degdeg mar waa taas nabiga salaantiisa Sheikh Ali Suufi lagu xabisay oo lagu tarxiilay kadib waxay diidayeen in lagu sayidina Maxamed sayid in la yiraahdo mar walba wax cusub ay diidaan hadda naagay niman aan isqabin ayaa hotel wada degi kara wax walba hadda waa la xalaalis marka wahaabiyada ka fogeeya caruurtiin